bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal soo dhowaada waxaan idiin soo gudbin doonnaa inta barnaamijkan aynu ku guda jirno kooxda daacish oo qarax la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa difaaca puntland khasaare kala duwan ayaa jira saraakiil ayaa markaasi ka mid a dadka ku dhintay qaraxaasi sidoo kale dhaawacyo ayaa jira waan idinla wadaagi doonnaa xogtii ugu dambaysay qaraxaasi lala egtay iyo howlgallo culus oo ka soconaya dhulka buraleyda ah ee caalmiska intana gudagelin marka koowaad soo dhowow muuqaalkan like saar sidoo kalena sii sheer garee naguna soo biir oo subscribe-ka noo taabo waa hagaag dhulka buraleyda ah ee caalmiskaad oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo baaxad leh oo ay wadeen ciidanka difaaca puntland oo kaashanaya diyaaradaha dagaalka ee ay ka taageerayaan maraykanka iyo imaaraadka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in maanta qarax markaasi lala egtay ciidamo markaasi ka tirsan kuwa difaaca puntland qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen askar kor u dhaafaysa ilaa 10 sidoo kalena waxaa lagu sheegay dhaawaca in tiradoodu ay gaarayso ilaa 5 askari ma ahan markii ugu horreysay oo ciidanka difaaca puntland lala eegto qarax markaasi ama miino dhowr jeer oo hore sidaan oo kale way dhacday laakiin kani waa khasaarihii ugu badnaa ee hal mar ciidamo ka tirsan difaaca puntland oo saraakiil iyo askarba isugu jirta lagu dilo arrintan oo noqotay mid aan weli xal loo helin maadaama kooxda awooddoodii markaasi la wiiqay sida ay sheegeen taliska ciidanka difaaca puntland weli in markaasi dhulka miinooyin ay ku jiraan dadka su'aalo isweydiinayaan oo leeyihiin away ciidankii miino baarista maxay u shaqo-geli waayeen waa su'aalaha badi dadka isweydiinayaan askarta meesha lagu dilay maanta ee miinadaasi ku geeriyootay waxaa ugu caansanaa ama markaasi saraakiishii ugu waaweyn hadda laga xusi kara ka mid a sarkaalkan idin muuqdo oo lagu magacaabi jiray maxamuud dagacadde muuqaalkan ila daawada waa inta qaraxa uusan haleelin isagoo hagaya howlgalka markaasi ka socda dhulka buraleyda ah ee caalmiskaad waan u soo laaban doonnaa sida uu qaraxa u dhacay iyo goobta uu ka dhacay iyo xogtii ugu dambaysay muuqaalka ila daawada taliyaha ciidankaas qoriga ugu sheeyo bixi qorxadhexiga bekaamka xabada yare meesha baa suuqa lagu garaaciyo godka baa suuqa lagu waa hagaag waxaan rajaynayaa muuqaalka taliyaha inaad daawateen hadda maxaa socda marka qaraxa uu dhacay ciidanka geesiyaasha ay difaaca puntland durba waxay bilaabeen howlgal culus oo ay markaasi ku qaadeen goobo la tuunsan yahay in laga soo maleegay qaraxan marka lala eegtay ciidanka difaaca puntland wararka ka imaanaya buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari waxay sheegayaan in 7 askari geeriyootay wararka ka imaanaya buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari ayaa sheegaya in 10 askari geeriyootay sidoo kalena ilaa 5 ruux oo kale ay markaasi dhaawac soo gaareen kadib markii gaari ay saarnaayeen oo nooca dagaalka ah marka lala eegtay miinada nooca dhulka lagu aasa qaraxan ayaa markaasi lagu soo warramayaa in uu ka dhashay miino nooca dhulka lagu aasa xilli maanta barqanimadii uu ka dhacay deegaanka darar madoobe oo u dhexeeya tuulooyinka tuur masaale iyo sidoo kale dhadaar ma ahan markii ugu horreysay oo waddada qarax loogu soo xiro ciidanka ama loogu aaso oo ciidanka dhulka markaasi buraleyda ah ee caalmiskaad ka dagaalamaya dhowr jeer oo hore sidaan oo kale way dhacday qaraxan maanta waxuu ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland maxamed baari shire sheegay in deegaano hore looga sifeeyey kooxda daacish ay hadda dib ugu soo noqdeen arrintaasi waa tuhun weyn ayay halkaa ka bixinaysaa warkii uu sheegay guddoomiyaha dad horena ay hore u soo jeediyeen waxaa lagu eedeeyey xukuumadda siciid dani in howlgalkii gebagabada ahaa ay fashiliyeen oo mar kale la doonayo in kooxahan ay soo xoogaystaan siyaasiyiinta qaar waxay ku eedeeyeen siciid dani in howlgalkan mashruuc lacag uu ka samaynayo ay tahay oo waxay leeyihiin mashruucan in uu dhammaado isagaaba diidanba sababtoo ah niman awooddoodii la wiiqay la duqeeyey meydadkoodii oo qalaale godadka loogu tagayo qaarkood is soo dhiibeen qaarkood nolosha lagu qabtay sidee ku dhici kartaa in deegaanada qaar dib ugu soo laabtaan ay miinooyin noocaasa
ay ku aasaan. waa eedo iyo sidoo kale dhaliilo loo soo jeedinayo Siciid Cabdulaahi Deni. ciidanku way dadaalayaan, waa sax, wax eeda ma laha. iyagu waa la amraa, meeshii gala la dhaho ayay galaan, meeshii ka joogsada la dhahana way ka joogaan. waxaa la isku haystaa marka sababta meelaha qaar ilaa hadda ay u geli laayihiin, sababta howlgalka habacsanaanta ku keentay xilli markii hore dardar uu ku bilowday oo masaafo aad u weyn marka loo eego muddadii howlgalka uu socday bilooyinkii hore ay ciidanka jareen. in hadda iyagii dib loogu soo laabto, lasoo weeraro goobahoodii, miinooyin loo aaso, waa su'aal calaama su'aal markaa dul taagan Siciid Cabdulaahi Deni. wayahay qaraxii maanta ee ciidanka markaasi tirada badan lagu dilay, runtii ciidanka geesiyaasha ay difaaca Puntland jawaab adag ayay ka bixin doonaan arrintaasi. saacadaha ina soo aadan ciidanka hadda waxay ku ruqaansadeen goobo horle. saacadaha ina soo aadan ciidanka difaaca Puntland jawaab adag ayay ka bixin doonaan weerarkii fuleynimada ahaa ee saaka lala beegsaday. saraakiisha la dilay ee qaraxaasi ku geeriyootay oo ka mid yahay Maxamuud Dhagacade waxay qayb ka qaateen tan iyo howlgalkan markii uu socday in deegaano badan laga ciribtiray kooxdan. waana arrinta markaasi keentay in la khaarijiyo oo kooxda Daacish ay markaasi bartilmaameed ay ka dhigtaan. saraakiil waaweyn oo ka horreysay ayaa la dilay oo ugu dambeeyey Generaal Qalyare oo isagu ahaa udubdhaxaadka howlgalkan Hilaac oo ka soconaya dhulka buuraleyda ah ee Caalamiska. inkastoo ciidanka meesha ay dhimasho u tageen oo dhimasho iyo dhaawac labadaba ay ku talagaleen, haddana waxaa la dareemayaa in ay jirto habaacsanaan. aaway ciidankii miina baarista ku shaqada lahaa, nimankan miinada hore ayay ugu aaseen meesha oo way kusii jirtay, ma hadda ayay ku aaseen oo waa miino cusub. kolley faahfaahinta dib ayaan ka sugaynaa oo laamaha ammaanka ay kasoo bixiyaan, laakiin waxaa la dareemayaa xoogaa habaacsanaan inay jirto. ciidanka difaaca Puntland har iyo habeen waxay u taagan yihiin difaacidda sharafta iyo karaamada shacabka Puntland. wax kasta oo ku dhacana waxay ugu dhacayaan in ay nabad ku seexdaan shacabka reer Puntland. howlgalka hadda waa gabagabo. Siciid Cabdulaahi Deni waxaa laga rabaa inuu tuutaha gashto oo furinta tago, ciidamada dhiirigeliyo. nimankan sidoodaba bil gudaheed way ku soo afjari karaan, laakiin waxaa loo baahan yahay in howlgalka uu noqdo mid markaasi daacad uu ka yahay hoggaanka sare ee markaasi Puntland, maadaama dhaliilo badan ay hareeyeen lagu eedeeyey in howlgalka aysan markaa daacad ka ahayn. waa inuu muujiyaa in howlgalka uu isagu daacad ka yahay, kana go'an tahay in kooxdan la ciribtiro oo aysan ka ahayn mashruuc maalmo socdo oo askarta lagu laayo. haddaba aragtidaada qaybta faalada aa noogu reeb sidaad u aragto habaacsanaanta howlgalka ku yimid, iyo sidoo kale talada aa usoo jeedin lahayd hoggaanka sare ee Puntland. muuqaalkana like saar si dad badan uu usii gaaro, naguna soo biir. mahadsanidin.